konton iyo lix jir Norweji ah oo marar badan xabsi soo maray kuna mutaystay khiyaanooyin, isdabamarin iyo sidoo kale magacyo kala duwan inuu isticmaalo, kaasoo uu ku dhacayay dadka isticmaala aaladaha kala duwan ee internetka waxna ku kala iibsado haba ugu badnaatee website-ka Finn.no ee sida aadka ah looga adeegto gudaha waddanka Norway. konton iyo lix jirkan ayaa hore usoo mutaystay 6 sano oo xabsi ah, isagoo haddana mar kale loo soo taagayo maxkamadda magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway khiyaanooyin, isdabamarino iyo waxyaabo kala duwan oo ku saabsan dhaca dadweynaha. Ninkan konton iyo lix jirka ayaa lagu soo waramayaa in uu marar badan magacyadiisa bedeshay, waxaana la soo xaqiijiyay in sanadkii 2011 magaciisu uu ahaa Lars Rune Solberg, waxa uuna qaatay 2024 magac kale oo uu la baxay Helge Moon, waxaana sidoo kale lagu soo waramayaa in mar kale uu magaciisa bedeshay, waxaana maxkamadda hadda ay u adeegsanaysaa magacii ugu dambeeyay ee uu bedeshay 2024 oo ahaa Helge Moon. konton iyo lix jirkan ayaa waxa uu isticmaalayay khiyaanooyin kala duwan oo dhanka internetka ah, isagoo dad badan ku khiyaameeyay aaladda website-ka Finn.no ee laga kala adeegto laguna kala iibsado waxyaabaha kala duwan. Waxaa lagu soo waramayaa in uu dhacay oo uu khiyaameeyay 2 dumar ah iyo 6 rag ah, kuwa oo uu ka dhacay adduun lacageed oo gaarayo 94,800 oo karoonka Norwejiga ah, waxaana la soo warinayaa in uu dadkani kaga iibinayay website-ka Finn.no mootooyinka iyo baaskiilada ku shaqeeya korontada. Ninkan ayaa qirtay dambiyada lagu soo oogay ee khiyaanada, isdabamarinta, adeegsiga magacyada kala duwan iyo dhaca uu qaybaha kala duwan ee bulshada uu ku hayay, waxaana lagu soo waramayaa ninkan in xabsi hore lagu xukumay sanadkii 2021 ka oo ahaa 6 sano oo xabsi ah kadib markii lagu helay in ka badan 130 dambi oo uu ka geystay gudaha waddanka Norway, kuwaasoo isugu jira khiyaanooyin, isku dayo kala duwan, isticmaalka ID kaarro kala duwan iyo sidoo kale markhaati been abuur uu sameeyay. Ninkani waxaana la soo daayay sanadkii 2024 kadib markii xukunkiisa wax laga jaray. Hadda ayay maxkamadiisu ka socotaa, waxaana maxkamad la soo taagi doonaa bisha aynu ku jirno ee Abriil dabayaaqadeeda ilaa iyo bisha May horaanteeda, markaasoo go'aan kama dambaysa laga gaari doono xukunka ninkan ayaa lagu soo waramayaa in uu si joogto ah dhac iyo sidoo kale isdabamarin iyo khiyaanooyin kala duwan uu si aad uga geysanaya aaladda internetka haba ugu badnaadee website-ka Finn.no ee sida aadka ah looga kala adeegto. Marar badan ayuu xabsi u galay dhacan, khiyaanadan iyo isdabamarintan, kumana quus qaadan oo weli wadadiisii ayuu ku taagan yahay sida muuqato. Halka warka kiisa ugu door karoon uu idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.